بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan mahadcelinayaa calanka runtii warbaahinta maaragtay Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ka qabtira wararka muhiimka ah ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Soomaaliya Professor Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi hogaaminaya waxay soo gaareen maanta magaaladan Oslo ee dalka Norway kadib markii booqasho rasmi ah ama casuumaad rasmi oo ka helay madaxda dalkan lana filayo labada maalin oo soo socota inuu wadankan kala hadli doono arrimo fara badan oo ay ka mid tahay koow shirki London iyo sidii Norway uga qayb qaadan lahayd dhaqangelinta go'aamadii ka soo baxay labo xiriirka Norway iyo Soomaaliya sidii loo xoojin lahaa loo dardargelin lahaa saddex sidii jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan dalka Norway ay dawladda halkan wax ugu qaban lahayd waxaad moodaa in bariyahan dawladda Soomaaliyeed dadaaladii ay ka sameysay xagga amniga xagga xiriirka maaragtay maamulada iyo dawladda xagga road mapka iyo dhaqangelintiisii lana filayo August in maaragtay la soo afjaro xilliga kumulgaarka in caalamku aad ugu soo jeestay dadaaladii ay dawladda wadayna lagu guuleystay oo David Cameron iyo dawladda Ingiriiskaba ay shir 23 February u qabteen Soomaalida kaasoo ku dhamaaday guul marka waxaa la filayaa booqashadan ku joogo Norway sidoo kale iyadana noqon doonto mid guul ku dhamaata kadibna ra'iisul wasaare waxa uu qorsheysan inuu sii aado dalka Sweden isagana uu ka helay casuumaad rasmi ah kadibna maaragtay uu dalkii sii aado oo bilaha soo socda ay muhiim u tahay shacabka Soomaaliyeed dawladda inay gacmaha isqabsadaan si loo soo afjaro xilligan kumulgaarka ah loo helo baarlamaan tayo leh dawlad maaragtay shacabka matali karta gobolada dhimanna laga xoreeyo kooxaha al-shabaab qodobada qaar ma looga taaban kartaa ama mid muhiim oo Soomaalida runtii shirkaasi shir muhiim u ahaa waa la socotaan oo dawladda Ingiriiska ayaa qabatay mahad ka gaartay oo aad soo taxalluujay Soomaaliya in loo istaago in konton dawladood iyo hay'adood baa yimid waxa badan laga hadlay communique dhowr la tababar ka soo baxay laakiin wuxuu muhiimsan waxay ahayd in Soomaalida loo istaago dagaal lagu bixiyo marxaladan muddo dadku in wadanku galayo jawi wanaagsan oo laga qoraadii iyo shabaab iyo shidadoodii ay naga sii yaraanayso marka in la yani horumarkaas hadda la gaaray la taageero horena loo socdo yani waxba ma laga hadlay in dhaqaalo loo suubiyo stability fund wax la yiraahdo in loo suubiyo wax la yiraahdo lagala dagaalamo burcadbadeeda xaq jirnimada marka waxyaabo badan baa laga hadlay marka oo qodobadii ka soo baxay waa communique ku qoran yihiin shir guul ah Soomaaliya guul ah bismillaahir rahmaanir rahiim runtii imaatinka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya maanta uu noogu yimid Norway waa arrin yididiile iyo farxad leh soona nooleynaysa rajada ay maaragtay jaaliyadda Soomaaliyeed Norway waana runtii mid aan u arko runtii inay furayso albaab cusub jawi siyaasadeed oo dalkay ku saabsan gaar ahaan furaysa kaash laga yaabaa sidii aynu isugu soo dhawaan lahayn Soomaalida Norway waxa laga yaabaa arrintaas inay nagu abuurto waan wada shaqeynay aad baan isugu soo dhawaanay bal kala daadstaanta halka lagu kala daadsan yahay anigu waxaan arkaa in aanu isu soo dhawaan doono hadii la haydo sida baashi uu yiriba aad baan ugu faraxsanahay Soomaaliya hadaan nahay imaanshaha halkan yimid ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waa markii ugu horeysay ra'iisul wasaare title-ka ra'iisul wasaare wadanka yimaado sida aad ogtihiinba halkan waxaa jira 30,000 qiyaastii 27,000 ilaa 30,000 Soomaaliya oo degan caruuro ku dhashay oo maanta dad waaweyn oo jaamacada ka baxay weligoodaan maqal Soomaaliya dawlad iyo nidaam iyo kala dambeyn macnaha moralkoodu aad u hooseeyo waxaan rajaynayaa kulankan dhici doona Talaadada in dhamaantood ay ka soo qayb galaan si moralkoodii iyo niyadoodii iyo wadankoodii maaragtay xusuusintii ay dib ugu soo noqoto maaragtay waxna ugu ogaadaan xaaladooda بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله محمد waxaa farxad weyn oo ah in ra'iisul wasaare Cabdiweli Maxamed Gaas uu maanta marti noogu yahay magaalada Oslo waxaan si aad iyo aad u soo dhaweynaynaa farxad weyn oo tahay waliba waxa noo soo carfaya neecaw nabadeed baa noo soo carfaya waxaan kaloo aad iyo aad ugu faraxsanahay shirkii Ingiriiska dhacay inuu ahaa shir aad iyo aad muhiim u ah oo lagu guuleystay marka farxad bay noo tahay inaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya la kulano maalinka Talaadada anagoo Soomaali ah oo warbixin uu naga siiyo oo aan markaa fursad u haysan inaan su'aalo weydiin doono oo aan dhagaheena maxay ahayd uga badan doono aad iyo aad u mahadsantiin meediyaha telefishinka Royal calanka Safari Box runtiiba waxaad iyo aad u xiiso badan inuu
رئيس الوزراء official بوقشة dalkan uu ku yimaado oo dhanka dawladda dhanka Soomaalida aad looga soo dhaweeyo isniintana talaadada soo socota wuxuu la kulmi doonaa Soomaalida uu sheegi doona markaas sidii shirkii London sidoo ay xaaladiisa ku soo dhamaatay runtii aragtida haddaan ka haystaa waxa weeyaan inuu yahay nin diyaar u ah su'aalihii raba in la weydiiyo inuu ka jawaabo de waxaan isleenahay shirka talaadada inuu sidii loogu talagalay uu ku dhamaado dadkana su'aalaha ay qabaan inay weydiistaan oo isna sidoo awood u leh uga jawaabo kulanka ra'iisul wasaarahan ay la qaateen guddigii soo dhaweynta ahaa ee dhanka Soomaalida ayaa intaasi lagu soo gabagabeeyay iyadoo kulankaasi lagu wado in kan xiga uu noqdo maalinta salaasada ay soo socota hadii Allah wadal uu raali ka noqdo lagu kulmi doono bartamaha magaalada Oslo ay Soomaalidu ka soo qayb gali karaan iyadoo la filayo in Cabduuli uu ka qanacin doono siyaasadda iyo xaaladda Soomaaliya waqtigan xaadirka ah halka ay ku sugan tahay Xasan Saciid shabakada calanka magaalada Oslo ee dalka Norway